arlada adilagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoy min xilqaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داودياشا قيمها iyo qadarinta mudanaw ku soo dhawaada barnaamijka tixraaca wararka ee Som News TV oo idin kaga imanaya studio ku leeyahay magaalada Muqdisho barnaamijkana waxa idin soo saaray idinna socodsiinaya anigu ah Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere dhanka kaamarada iyo farsamadu waa injineer Caydiid barnaamijka waxaanu diiradda ku saari doonaa shirkii Dhuusamareeb 3 odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubbaland oo Muqdisho kulan ku yeeshay dhammaan ugaasyada iyo waxgaradka beelaha dega Jubbooyinka matala ayaa waxa ay taageereen shirka Dhuusamareeb 3 ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhuusamareeb shirkaas oo uu gogoshiisa dhigay madaxweynaha Galmudug Mudane Qorqor haddaba sulaamadii meesha iyo waxgaradkii meesha isku yimid waxa kamid ahaa سلطان جامع حسن إبراهيم iyo sidoo kale ugaas Faarax Cabdi Sheekh iyo ugaas Cabdi Xasan iyo sidoo kale Sultan Maxamed Sultan Cigaale Hooley iyo sidoo kale Sultan Cismaan Xasan Yuusuf waxa ayna dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen shirkaasi iyagoona mahadnaq u jeediyay madaxweyne Qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxdii kale ee maamul goboleedyada ka qayb galay markii laga reebo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini oo aan shirka ka qayb galin waxa ay sidoo kale ay xal marin ka bixiyeen sida ay sheegeen in ay maqnaashaha uu maqnaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ay sheegeen in uu maaragtay wax laga xumaado ay tahay in shirkaasi ka soo qayb gali waayo waxa ay dhanka kale taageero buuxa ay u muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ku ammaaneen doorka ay iyaduna ka wado shirkaasi qaabkii uu qabsoomi lahaa iyo wax badan waxayna dadka reer Galmudug dhanka kale ay ka raali galiyeen in maqnaashaha madaxweynaha Jubbaland waxa ay sheegeen in Jubbaland ay shirkaasi qayb ka yihiin qaybna ay ka yihiin sidoo kalena ay taageerayaan wixii ka soo baxayna Soomaali weyn oo dhan ay taageertay iyaguna ay ugu horeyn waxa ka hadlaya Sultan Jaamac Xasan Ibraahim oo ugu horeyn hadlaya waxa isaguna ku xiga ugaas Faarax Cabdi Sheekh iyo sidoo kale ugaas Cabdi Xasan iyo Sultan Maxamed Sultan Cigaale Hooley iyo sidoo kale Sultan Cismaan Xasan Yuusuf waxay dhamaantood sheegayaan in ay shirkaasi soo dhaweynayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waa idin salaamay salaanta islaamka idinku salaamay salaadiinta iyo dhammaan odayaasha oo dhan culmaa diinka aqoonyahanka iyo hooyooyinka dhammaan salaanta islaamka idinku salaamay salaan kadib wasan gaaban warkiisa gaaban warka waa la soo gaabinayaa la yiri dadkuna waa badan yahay waxaan dhihi lahaa horta walaalkay baan waxba ka reebin oo isku fuuqsaday xaqiiqatan shirkan maanta la isku imaaday arrimo macruuf oo aad iyo aad u qiimo badan oo Soomaali oo dhan dhaqaaday way waxa looga hadlayo waxa weeye waa shirkii Dhuusamareeb 3 haddii Ilaahay yiraahdo iyo muxuu ahaa haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa wixii ka soo baxay oo lagu taageerayo annagu waxaan nahay dadka meesha fadhiya waa dhaqankii Jubbaland haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa intii Ilaahay uu galabta soo garansiiyay meesha timid in badan ay ka maqan yihiin magaalada ku jiraan waxaan rabnaa inaan haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa taageero buuxa iyo cod buuxa iyo kalsooni buuxda annagoo ku hadlaynaa codkii Jubbaland annagoo ku hadlayno salaadiinteedii ah inaan shirkaasi siino haddii Ilaahay yiraahdo kalsooni buuxda oo haddii Ilaahay yiraahdo aan ku garab taaganahay aan ku duceynayno
oo Soomaali weyn wixii meesha ugu soo baxay aan leenahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa wax Soomaali wax tara oo haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahay dhaxalgal noqda oo ilaa doorashooyinka nabad ku dhamaado Allah ka dhigaan leenahay saasaan ku duceynaynaa taageeradaas waa taageerada shirkaas sidaas u taageeray kama maqna Jubbaland shirkaas lama dhihi karo Jubbaland baa ka maqan waxaan galabta u nimid oo ka dheedhinay waxa weeye Jubbaland baa ka maqan shirkaas weeye waxaan galabta isku nimid oo dhiigaana u dhaqaaqay Jubbaland shirkaasi way ku dhantahay odayaasheedii salaadiinteedii baa fadhiya aqoonyahankeedii baa fadhiya haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa kuwii madaxweyne u sharaxnaa baa fadhiya cid naga maqan ma jirto waa loo dhan yahay shirkaas oo taageeradiisa baa Jubbaland siinay haddii Ilaahay yiraahdo qodobka waa qodobkaas qodobka labaadna waxa weeye wax la meeloogaan oo taariikhda galay oo madaxweyne qoorqoor u sameeyay way ayadoo ay la qabto reer galmudug dhammaan say u dhayihiin ismada iyo culamaa u diinka iyo nabadoonnada iyo hooyooyinka dhammaan saqiiri wa kabiir say u dhayihiin maxaa jira waxaan arkaynaa inaan loo kala harin oo aan arkaynay aan dareemaynaba geel inuu haddaba daaqayo saacad dambe inuu daaqayo wixii meesha la keenay qalooyinku ma dhammayn kareen in hatta mar dambe lagu qaban doono hadda daaqayo aan dareemayn xoolihii meesha la keenay marka arrin aan wali Soomaaliya ka dhicin bay ahayd taariikh ah wixii meesha ka dhacay marka arrintaasna waa ka mahad celinaynaa galabta waxaad arki doontaan nasiib darro waxaa naga maqan sawirkii qoorqoor iyo raggii madaxda meesha joogay sawirkooda waa naga maqan laakiin nin isim oo noo masalan haddii Ilaahay yiraahdo ku masalimi doonaan cimaamadaha iyo waxaan saari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa saari doonaa insha Allah insha Allah qoorqoor waxaan leenahay nin dhalinyaro daayar ah oo maanta asagoo haddii Ilaahay yiraahdo hadduu baadadiisa 40 tahay madaxweyne Ilaahay ka dhigaa tahay madaxweyne federaal waa ku rajeynaa Ilaahay idinka insha Allah waxaan leenahay hor u soco nabadda Soomaaliya aad galmudug ku qaban qaabisay dhibaatadii Soomaaliya waxa la dhihi jiray halkaas ay ka soo baxday maanta waxa ku dhamaatay meesha idin Ilaahay taana sidaas aan leenahay adiga sabab u noqday iyo inta wax kula wada oo dhan baa sabab u ah laakiin madaxii baa tahay haddii Ilaahay yiraahdo aad baan kugu mahad celinaynaa madaxweyne qoorqoor haddii Ilaahay yiraahdo magacaada ha jiro cibrigaada ha raagan ku leenahay insha Allah taasna haddii Ilaahay yiraahdo muxuu ahaa taasna intaasaan uga baxayaa qodobka saddexaad waxa weeye haddii Ilaahay yiraahdo Jubbaland waa sheegno Jubbaland shirka kama maqna shirkaasi way ku dhan tahay hal nin baa looga yeeray oo madaxweyne Jubbaland waa la dhahayay annaga laakiin uma ana aqoonsanin xaqiiqatan annaga waxaan ahay raggii odayaasha dhaqanka Kismaayo tagay Axmed garka haastay yiri haddii aan wax kula dhisno iska daadiyay baan ahay uu diiday war aan wax kula dhisno oo xaqan leenahay haddii wax naga sii dadkii lahaa oo uu diiday baan nahay xaqaan uu diiday Soomaalinimadii uu diiday wada jirkii iyo haddii Jubbaland waxa u dhantahay uu diiday haddii Ilaahay yiraahdo waxaan aragnay asagoo leeyahay waa madaxweyne annaga u diidan haddana dawladda baa waxay tiri haddii Ilaahay yiraahdo 2 sano kugu daray 2 sano asaga diiday haddana warqad soo qoro yiri haddii Ilaahay yiraahdo iyo ma cunto marka Axmed sidaas uu madaxweyne ku ahayn Axmed sidaas uu madaxweyne ku ahayn warqadii loo qoro 2 sano asaga soo celiyay afarna haddii Ilaahay yiraahdo hadda kolka hore baa la diidanaa madaxweynenimo baa la isku haystay doorasho ma dhicin Axmed 8 sano ayuu haddii madaxweyne ahaa doorasho lagu muxuu ahaa labaadna ma dhicin oo loo dhayahay ma dhicin marka taas annagu dawladdan aan haddii Ilaahay ku dhaliilayn oo lahayn war madaxweynaha waa la dardaray madaxweynuhu waa la dardaray inaan wax mucaaradana waa diidayno dawladdiiba haddii saan inaan niraahdo waa diidayno haddana farti waa noo taagan tahay waxaan rabnaa inaan cod dheer ku gaarsiino dawladda madaxweynaha u sareeya federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka iyo dhammaan baarlamaanka dawladda federaalka si ay u dhan tahay waxaan rabnaa annaga sidii horeba ee ugu dhawaaqday dawladda inaan laga bixin dib u heshiisiin loo dhan yahay iyo maamul loo dhan yahay in la wada dhisto oo haddii la baarlamaan muxuu Jubbaland sugayso oo dadkeedii sugayaan taa Jubbaland dawladda taas ka sugayaan
باش عالم تاسع كسوينا باش عالم تاسع كسوينا وحي كله وواحد إلهي أمد جبلان إسكور كين هيو وأن معنى دليل رجع هدي إلى المهر الجشتي تبدأ الجشتي المكان جو جبلان هنا جبلان أسود يشدوني بين جبلان ومال نبضع وما لين هذا مال نبضات بهدي أمد الأطقان إن شاء الله وحربنا سن نبضات إن كنا ما دونت إلهي إنتي دولة فدرالك وحلينا هاي شعب كأيهدينا السمادة السوتة نبض جبلان هقرب قشالين meeshan waxa la soo yimid waxa weey aniga hadaan nahay reer Jubbaland inaan taageerno shirki dhulsamareebo 3 oo lagu soo gabagabeeyay ummadda Soomaaliyeed mid xal ugu jiro oo ummadda isku timaado oo ummadda ku heshiiso oo ummadda Ilaahay khayr iyo barwaaqo Ilaahay ka siiyaan Ilaahay ugu barnaynaa madkala waxaan sheegaynaa adduunku waxa weeye baarlamaanaha adduunku markii la fadhiistay dadku waxa weeye baarlamaanka oo baa loo qaadaa markii la qaado 200 hadii yahay 120 hadii mar gaaro oo yaani 130 hadii gaaro qodku waa laga helayaa nimankan waxa weeye shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir marka meesha la isku imaado waa 6 laba maqan afarna waa joogan madaxweynaha shanka nimanka codkii waa laga helay marka runta ku sheego marka dadkooda inuu taageeraan waa loo baahan yahay waxa weeye adduunyada sideeda baan idin sheego dadka reer magaalada yahay magaalada la soo maray waxba la soo arkay waxba la ogaaday waxa weeye maalin kasta waa xanaaqsana aniga dantayda wax ka maamula awood wax ka maamula adeer awood waa dhamaatay ummadda inuu wax wada qeybsato ummadda inuu midnimada iyo sharafta iyo sinaanta iyo cadaaladda in xageeda loo jeesto ayaa horta aad iyo aad u fiican waxaan aad iyo aad u taageerayaa madaxweynaha galmudug maxamed cabdi kaariye qoorqoor oo nin sharaf badan ah asiga dawladdiisa 5 bilood aan joogin ayaa waxa dhigay gobol nabadeed 200 300 nafar geel ah iyo 1,000 nafar eriya anta raashin ah ayaa ugu daagay yahuud meesha tagtay ilaa waqtigii laga joogay hadda asiga marta qaadaya ninkaas waxa mudan in yaani maaragtay aniga reer Jubbaland aan nahay in yaani aan siino yaani tabilid geesi bilid dahab ina isugu darnaa fi horta aad buu mahadsan yahay tan kale aniga reer Jubbaland aan nahay reer Jubbaland waxa way IT kale inay ka tashtaafaa aniga ninka leeraha ninka Maxamed Sheikh Maxamed Abdul Islam waxa way maalintu la dooranay aniga Kismaayaan joogay waxa way hadal runta la sheega way odayaal badan baa joogeen maalintu la dooranay dadkii doortina waa naqaana aniga Ilaahay markaan ka absado asiga dartiisa la xiri waxa la yiri yaani martii shirka waa diiday la yiri tuugu dhali yaani waa li qabti waa li xiray baabuura li dhuftay 8 bilood hal sirjiif oo Ilaahay dad ba qaarkiisa luqtaan iyo gacanta waajibay waxa la yiri burcad way bariira la saftay la yiri bariira aan shaqo isku maleen marka waxa way horta doorashadaas waxa ay doorasho yaani marti hogaami kooxad watano oo dhalinyaro Malaysia watano oo yaani marti oo baashi raas Cambodia watano oo Kenya wadamada Kariis ayaa meesha la doortay tii labaad hadana kuwii asiga sameystay saddexni halikan halina kala bahawiri baarlamaanka ninkii hadal maqlo waayeen kan hadda meesha jooga Abdiyar Amal ma Aliyar Amal dhigta la soo qabtay waa la soo fiiji ma gartay nin qabiil u hadli kar Ilaahay abuur male wana aniga Ahmed Madow dalka naga dhaheeya dal diinta naga dhaheysa yaani ma dad manada naga dhaheysa aniga xoog naga mahaysan kar Ahmed Madow aniga xoog naga mahaysanaay Ahmed Madow aniga madaxweyne nooma ah mar horaan yaani madaxweynadiis diinay madaxweynaha federaalka waxaan ku codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan ku codsanaynaa aniga dhaqankiisa nahay shacab baa naga dambeeya dad baa mas'uul ka nahay Ilaahay baa mas'uul naga yahay in dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena inay nabadgelyo iyo sharaf inaan yaani ku horseena rabnaa ninkan asiga dabada nagu wada Maxamed Ahmed Farmaajo walaalow macaanow ninkan noo qabso aniga madaxweyne noo maaha man yeelayna man ogolaanayna xafladan sharafta badan
oo sida aadka loo soo agaasimay oo ay dhigeen dhaqanka iyo duubabka Jubbaland ayagoo raaligelin buuxda ka siinaya dhigooda walaalood ee Galmudug sida sharafta badan ay u dhigeen gogashii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaad iyo waqtiga muddada yar madaxweyne Qoorqoor oo mas'uuliyadda hayay sida sharafta badan oo ay isku garab istaageen dhammaan bulshada ku nool Galmudug anagoo ah odayaasha dhaqanka ee Jubbaland arintaas waan uga mahad celinaynaa saqiir iyo kabiir dal iyo dibad meel walba ay joogaan dadka ku abtirsada Jubbaland gogoshaas wixii ka soo baxa waxay ka yihiin rally dadka ka baaqdana waxaan u jeedinayaa Soomaalidu waxay tiraahdaa urjiif hooyadiisu ku gowracan yahay waxa meesha jooga madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii gogosha dhigay sharafta badan madaxiisa Allah raajiye Qoorqoor iyo madaxweynihii Hirshabeelle iyo kii koonfur galbeed lafta gareen iyo maamulkii gobolka Banaadir haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meeshii jira loo laabaa hadday intaasi isku raaceen annagana waan ayidnay waana ku mahadsan yihiin waana ka raali gelinaynaa mas'uuliyadda Jubbaland ninka sheeganayay ee shirka ka baaqday Jubbaland way joogtaa way ayiday habeen iyo maalin wixii ka soo baxana waan taageerinaa taasi halkaas aan uga xariiqayo waxaan rabaa Soomaaliya maadaama aan ahay suldaanka ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa u bayaaninayaa Soomaalidu waxaa markaad la wareysato Raas Kamboni Soomaalidu meel kale ma jirto waa dad walaala eela qaraabad daris xidid iyo xigaala ah markaad weydiiso war waxaan dhibaatadan iyo dulligan aan ku noolnahay maxaa sababaya anagoo dad islaam ah oo walaala eela in maalin walba uu ku tagrifalo masiirkeena iyo sharafteena iyo dadnimadeena nin siyaasi ah oo xil doonaya oo 4 sano kadib la bedelaya maxaa sababay markay tiraahdo waxa ay la soo boodayaan Ilaah baa qoray sax weeye Ilaah baa qoray waxaan Ilaahay qorina ka dhici maayaan adduunka laakiin Ilaahay adiga dulinimo ku nool oo kuma dhihin anagu dad islaam aan nahay haddii aan qaldanno waa inaan Ilaahay u noqonnaa waa inaan Ilaahay raali gelinaa waa inaan boorka iska jafnaa waa inaan soo dooranaa siyaasi diin leh oo iimaan leh oo anagoo hurdeyna anagoo jiifna anagoo maqan danteena iyo danta dalka iyo diinta ka talinaya adduunkana waxaa loo baahan yahay midnimo haddii midnimo la helo waxaa hagaagaya danta guud iyo midda gaarka ah caalamkana waxaan u sheegaynaa Soomaaliya maanta waxay lugta saartay wadadii nabadda anigu waxaan ahay suldaankii 2 bilood joogay 5 nin oo ugu horeysay hogaaminayay shirkii nabadda Hobyo waan amaanayaa waa u duceynayaa dekadooda Allah u hirgeliyo wadankooda Allah u maceeyo waa dad khaniya oo sharaf badan oo saqiya oo wax bixiyo si fiican noo soo dhaweeyay shirkaasi waxa uu dhalay guddigii lagu doortay iyo wanaagii meeshaas ka dhacay in mudana Qoorqoor iyo dadkiisii ilaa hadda 1400 oo neef oo xoolo ah iyo nasiya ari ah ilaa maantana way wadaan isagoo geela wax walba waxaan leeyahay waxaad qabateen waxa ka weyn waxa idin sugaya Soomaaliya waa inaad isku keentaan Raas Kamboni oo la mideeyo Soomaalidu waxay tiraahdaa balaayidu ma leh daba la qabtay daama la qabtay leedahay maadaama dagaalka Soomaaliya uu ka soo bilaado gobolada dhexe waa sida Soomaalida ay yiraahdaan nabadda Soomaaliya waa inay ka soo bilaabataa goboladaas wayna ka bilaabatay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa anoo suldaanka ummadda Soomaaliyeed in arintaas ilaahay noo hirgeliyo Soomaaliya qalbigooda burcad wanaagsan ilaahay isku soo mino Soomaali mid iska badegan ilaahay naga dhigo siyaasiyiintan wiifka 4 sano hungurigoobkana ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa inuu naga qabto shacabka Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa khaasatan dadka maamulka maanta haysta ama madaxweyne Farmaajo ha noqdo ama maamul goboleedyada ha noqdo ama Qoorqoor wanaagan faraha badan sameeyay wax walba bini aadanka ay sameeyaan oo wanaag badan oo qurux badan hadda ilaahay baa raali ka
ilaahay wuxuu raali ka yahay in la sameeyo waaye kitaabka ilaahay in la isku dhaqo waaye kitaabka ilaahay in la isku xukumo waaye kitaabka ilaahay meesha uu jiro xukum in la raadsado waaye marka maadaama aan islaam nahay guri haddaan joogno iyo geed haddaan joogno iyo beled haddaan joogno waa inaan islaamnimadeena caddeynaa diinteenna gacanta midigtaa ku qabsannaa taasna waxay dhalaysaa qof walba xaquuqda ay leedahay inay hesho waxaa sharaf weyn ii ah maanta kulankan ballaaran oo xafladan ay soo agaasimeen ugaasyada iyo salaadiinta duubabka iyo dhammaan ururka hooyooyinka oo dhan ee reer Jubbaland in aan ka soo qayb galno oo aan ku soo dhaweyno oo shirkii dhuusamareeb 3 ka dhacay in aan u hambalyeyno ayaa halkan aan isugu nimaanay marka koowaad waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo dhammaan shacabka reer Galmudug waxaan leeyahay waxaad dhaxasheen hooyadii Soomaaliyeed Puntland marka hore sheeganaysa inaad maanta reer Galmudug waxa u dhaxasheen waa in kaga mahad celinayaa marka koowaad taas shacabka reer Jubbaland oo dhanna waa in kaga mahad celinayaan waxaad ka shaqayseen ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan maanta waxay idin hayaan si sharaf iyo cizi oo aad shirkaas ugu qabateen oo ka shaqayseen ummadda Soomaaliyeed in aad wanaagooda iyo horumarkooda ka shaqaysaan aad baan idinku hambalyeynayaa marka koowaad marka labaad Axmed Madoobe 9 sano ayuu joogay 5 kilomitir oo Kismaayo 9kaas sano wax madaxweyne uu noo ahaa annagu reer Jubbaland haddii aan nahay ma jiraan waxa uu nagu haystay waa xoog unbuu nagu haystay sharcina naguma haysanin sharcina laguma soo dooranin wax xoog ah ayuu nagu haystay ilaa haddana ma aqoonsanin in uu madaxweyne yahay ma aqoonsanin waxa madaxweyne hadda annaga aan u aqoonsanahay oo Jubbaland ummadeeda iyo shacabkeeda isku dubariday oo 7 degmo ilaa hadda gacanta ku hayo Cismaan Nuur Xaaji Macalimow oo hadda gacanta ku haya degmooyinka Jubbaland ugu ballaaran asagaan aqoonsanahay shacabka iyo salaadiinta iyo ugaasyada reer Jubbaland waxaan markaa annaga aan isku raacsanahay oo go'aan naga ah inaan dhisano maamul Jubbaland oo ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u dhan yihiin oo xol xalaal ah inta haddii aan ka gudbo waxaan baa ku dirayaa dhammaan madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha sihayaha iyo dhammaan golaha baarlamaanka oo dhan xildhibaanada in aan annagu haddii aanu nahay salaadiintii iyo ugaasyadii iyo duubabkii reer Jubbaland iyo shacabka dhammaan in aan Axmed Madoobe aan aqoonsanayn madaxweynena noo ahayn nagala horleexiyo Jubbaland xor iyo xalaal ahna aan dhisano taas ayaan soo dhaweynaynaa meel kasta afka shacabka Jubbaland anoo ku hadlayo hadal badan ma rabo inaan ka hadlo salaadiintii iga horeysay hadalka soo dhameysay waxaan rabaa inaan mar labaad u hambalyeeyo Axmed Cabdi Qorqor oo si ehelnimo walaalnimo ugu soo baaqay ummadda Soomaaliyeed inay isu timaado oo si gobonnimo leh u soo dhaweeyay asaga ayaan mar labaad u hambalyeynayaa hambalyo ayaan leeyahay Axmed Madoobe iyo Dani oo markii Dani la doortay ilaa hadda hal maalin aan Muqdisho ka soo degin dowladda federaalka iyo caalamka Soomaaliyeed oo isku garab sawirayo anigu uma arko inuu madaxweyne danaynayo Soomaaliya inuu yahay uma arko Axmed Madoobena ma aha madaxweyne Jubbaland asagana dan gaar ah ay labadaba wataan imaaraad iyo Kenya ayaana adeegsato ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay hal dhin ugu soo wada joostaan ayaan soo joodinayaa anigu haddii aanu nahay shacabka reer Jubbaland waxaanu taageeraynaa haddaanu nahay shacabka dhalinyarada hooyooyinka dadka reer Jubbaland waxaanu taageeraynaa iyo aqoon-yahanka iyo siyaasiyiintuba shirkii ka dhacay dhuusamareeb ee loo bixiyay dhuusamareeb 3
shirka waan taageeraynaa. Soomaali waxay gaartay ayaa annaga wax noo ah. Soomaali baan nahay, kamana harayno. Soomaali inteedii badnayd meesha way isugu tagtay, wixii ka soo baxayna waanu taageeraynaa. taageerada annagu shacab ahaan aanu haynaa mid aan la gabanayno ma aha. waanu sheegaynaa, waanu caddaynaynaa. arrintaas taageero buuxda ayaanu u haynaa shirkaas iyo wixii ka soo baxay. qodobkayga labaad, dhaqanka Soomaalida waxaa mamnuuc ka ah ama faaxish ka ah ama wax xun ka ah ninku marti qaaday ood martidii oo aad gogashiisii tagtay ood mar labaad tagtay ood mar saddexaad la ballantay ood haddana tiri ma imaanayo. xaashaa kulillah, ceeb wey. xaggee laga marayaa odayaashii reer Galmudug ee geelaad aragteen ururiyey, ee xoolahaad aragteen ururiyey, ee inta meediyaha ka hadlay yiri war Soomaali baanu nahay maanta waanu daalaye war walaalayaal wax Soomaali anfacan noo soo saara oo meesha ku hesiiya. nimankii sidaa yiri ee juhdigan aragnay shirka ku bixiyay wax hotel oo dadkaasi degeen malaha, guryaal la wada dajiyay, lagu marti qaaday. arintan xagee laga maraya waa ceeb. laakiin waxaan ballan qaadaynaa inaanu maanta raali gelin buuxda iyo maxaan ku niraahdaa raali gelin inaanu ka bixino dadkii reer Galmudug, madaxdii meesha tagtay oo madaxweynaha qaranku u horeeyo. siiba waxaan aad u sii ammaani doonaa madaxweynihii gogoshaa dhigay ee muddada yar xilka hayay ee intuu isagu meeshii si aslaaxiyo ummadii oo dhan isu keenay, Soomaali isugu yeeray. kaas waanu u mahadcelinaynaa. maantana sidaanu u dhannahay waxaanu saaraynaa cimaamadaha, koofiyadaha, wax walba waanu saaraynaa. waa u mahadcelinaynaa, raaligelin baanu siinaynaa haddaanu shacabkii reer Jubbaland nahay. qorqor intaa waxaan ugu darayaa, galabta waxaan isla qaadanay inaanu bilad sharaf nabadeed aanu u xirno qorqor. madaxweyne jiraanu leenahay. ilaahay ha ku taageero. ilaahay shaqada aad wado ilaahay meel kale ha kula gaarsiiyo. odayaal badan baa iga damayn doona. xaal marintana qaab baanu ugu talagalnay, qaabkaas ayaan u samayn doonaa, waanaad arki doontaan. markaan u soo noqdo Jubbaland, 6 degmo hallin baa haya maanta. macallimi baa la yiraahdaa. axmedna Kismaayo iyo Axmedow wax degmaa ka haya. dawladdu iyada aqoonsatay oo tiri 2 sano ugu darnay, laakiin shacabku arrin ay aad uga soo horjeedaan way. shirka waa cudur dartay xanuun baan sheeganayaa buu. siday isu qabanayso xanuun baan sheegtay oo anigu shirkii cudurdaar xanuun baan kaga maqanahay iyo communicate-kii lagu diidayay waxan baan wax ka soo saaray. jawaabteeda Soomaali baan u daynayaa arrinta iyada. waxaan rabaa inaanu caddayno mowqifka iyaga ka odayaal ahaan inaanan marnaba aqbalayn in Soomaali kala tagto, in Soomaali ay meel kala aado. annaga Soomaali baan nahay. Soomaali inteedii badnayd baa fariisatay. dadka qayb baa waxay leedahay meesha daarood baa ka maqnaa, waxba kama jiraan. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya daarooda isagaana fadhiyay, isagaana matala kuwa kale. waxaan hadalkayga ugu soo gabagabeynayaa, annaga beri baan ka nahay. Soomaali waxay rabto ayaan rabnaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهجاج أخيارتا قيمها يقدرين تمضروا أنت كبعد مركي قطبضوها يدمالين وها أي نبضون نضو أي شيئين إن أي مد كمدا نبضون نضا أي كسو قادنيان مدحوينه قلمدو قرقور وحنا أي هل كان أي حال مرين كسينيان مدحوينها قلمدو نين أمتلا oo ay sheegeen inay dadka reer Galmudug ay ka raali gelinayaan xaalna ka bixinayaan maqnaashihii madaxweynaha
jubbaland uu ka maqnaa shirka waxa ayna taasi u dhacday sida tan waxaan rabnaa inaan bixino haddii ilaa sabeentii iyo wixii haddii jubbaland laga tirsanayay inaan haddii ilaah idhaahdo muxuu ahaa waxaan bixinaynaa tilmaamihii ugaaskii baan haddii ilaa sultaankii baan u dhiibaynaa sabeentii reer galmudug nabadeyntii reer galmudug raaligelintii madaxweynaha kii dowladda oo dhan haddii ilaah dhammaan cimaamada saarada marka saarada marka reer galmudug raalli ahaada reer galmudug raalli ahaada reer galmudug raalli ahaada madaxweyne qorqoor raalli ahaaw anagoo jubbalana reer galmudug raalli ahaada sultaan naga gaarsii reer galmudug naga raalli ahaada reer jubbaland haddaan nahay saban baa xidhaynaa shirkaa kama maqnin qoorqoor ma qabato insha allah qoorqoor ma qabato waxaan ka bixinay xaal insha allah reer galmudug xaal qaata salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka tixraac wararka ee Sam News TV oo idinkaga imanaya stuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho waxaana idin soo saaray anigu Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere dhanka farsamada iyo kaamirada waa injineer Caydiinta barnaamijka mid lamid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu amaana allah hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko ay furan idinkuma arkaysid ila adeerko min xilqaaday eed qadiihoyo min xilqaaday eed qadiihoyo